okay. haye Eh, doctor soo dhawow. waan iminkaan cumar waan iminkaan soo yar fuulay, marka waxaan ka fahmay inuu samater leeyahay akhlaaqda waa subjective soo ma? boqolkiiba boqol. Samater soo saas ma ahayn? Okay. si fiican. iyo waxaan maqlayay inaad tiri yani cadaalad, iyo inaad wax ku qiimeynayso inaa yani qofka qofka meel baan yaro fuulayaa, qofka inaad yani noloshii in qofka noloshaan qiimeynaya. maya cumara wuxuu i weydiiyey Samaterow ukaad ha waa kaga jawaab. cumara wuxuu i weydiiyey dilka ma wax xunaa, markaasa waxaan dhahay ha dilka waa wax xun. marka wuxuu i weydiiyey sababta maxay tahay, markaasa waxaa dhahay nolosha waan qiimeeya aniga. marka adigu may ku may xun yahay laakiin ma aha wax objective oo dhan. doctor axmedow ninkan wuxuu leeyahay cadliga inuu fiican yahay, dulmigana inuu xun yahay. wuxuu leeyahay wuxuu bataagan yahay waa subjective waaye, objective ma aha, sidaasuu taagan yahay. Okay, markaas samatar ahaan buu cadaaladuna u fiican tahay, dulmiguna u xun yahay soo maaha? yani adiga ahaan aniga way ii marka fiican waxba kama qabtid. cadaaladda aniga cadaaladda wax fiican aan u arkaa, waa qiimeeyaa. dulmigana dee wax xun aan u arkaa. laakiin keligaygun maahan taase, laakiin dad badan boqolkiiba 99 adduunka way la raacsan yihiin arrinta taas ah. may sax samatar, ummadda badankeedu way qiimeysaa, waa kugu raacitaa. laakiin waxaan ku weydiinayaa yani waa cadaaladda adigu ahaan baad u qiimeysaa, laakiin wax dee dadka aad bereshar ku saaraysood leedahay cadaaladdu waa si kastay saxsan tahay, qofka ka tagana waa daalim, dulmiguna wuu xun yahay oo aad leedahay ma jirto. yani aniga haddaan dulmiga jeclaado sidaad cadaaladda u jeceshahay waxba kama qabtid soo maha? dabcan dulmiga waa jeclaan kartaa, laakiin dee waxaa noqonaysaa soomahan minority. taasna micnaheeda waxay laakiin noqonaysaa adigu marka taas micnaheeda waxay noqon kartaa marka ogaad taas marka micnaheeda waxay noqonaysaa haddii aad la nooshahay dad qiimeeya cadaaladda, dee markaas xabsiga lagu gelinayaa. samatar xabsiga la gelinayo maaha, ma ku weydiin. laakiin inaan anigu dulmiga jeclaado waxba kama qabtid, oo aniguna subjectively aan dulmiga macaansado sidaad adigu cadaaladda u qiimeynayso oo kale waxba kama qabtid soo maa? no waxbaa ka qabaa taas aniga. okay, marka maxay igu haysataa haddaad dulmiga jeclaado adiguna aad cadaaladdii jeclaatay, kala dooq ma noqonayo soo maa? wixiina dee waa subjective ilana. dabcan adiga dulmiga waxaa dhahday dulmiga waa wax fiican, dee marka anigana waxaa dhahay dulmiga waa wax xun. so marka haddii aan mindi soo qaato qoorta kaa gooyo, so adiga dhahay soomaan dulmiga wax fiican, so marka adiga taas waxba kama qabaysid, so marka wax dhibaa meesha maba jiraayo moogta. aniga dulmi laakiin waxaa qabaa hadda adiga mindi fiiri ukaada ku dhimanaya. adiga haddaa mindi soo qaadatid maanta aniga qoorta iga goysid, aniga waxaa u arkaa taas inay tahay khalad. maxaa yeelay dulmiga wax khalada u arkaa, laakiin haddii aniga aan mindi soo qaato oo adiga qoorta kaa gooyo, adiga taas wax oo khalad ah uma aragta, waxaa u aragtaa wax fiican inay tahay. maxaa yeelay dulmiga waxaa u aragtaa inuu yahay wax fiican. so marka labadeena waa iswaafaqsannahay markaas. samatar inaan dulmiga u arko wax fiican ma ku saxanaya taa anigu? inaad ma ku dulmiga wax saxanahay fiican u aragtid ma ku saxan tahay ani ma ku saxanahay inaan wax fiican u arko? yani aragtidaydu inay sida noqoto sax ma ila tahay, maadaama de cid walba dooq ay leedahay oo subjective ay tahay. su-aashana ay weydiinaysaa soomahan aniga samatar ahaan waa ku khaldan tahay. okay, adi ahaan laakiin eg adiga unbaan kaa xaggaaga unba adigunbaa ii arka qalad, waxba kama qabtid, laakiin in ummaddayadan oo dhan aan isku raacno inay dulmigu sax tahay. si kalean kuugu dhigo dadkuna si ay u fahmaan, yani dil iyo intaan kuu geysto xumaan, xaaskaagii oo kale aan kufsado, ilmahaagiina hortaada intaan ku jarjaro aan cuno, arrintaasi ma wax aad adiguni qalad u aragtaa mise waa wax qaldan? xataa haddii aan intayadaa kale ee ummadda adduunka ka hadhay ay isku raacdo inay saxan tahay, waxaas wax qaldan ma yahay mise adiga aragtidaada unbuu ku qaldan yahay? aniga aragtideeda uu ku qaldan yahay, dadka kale aragtidoodana uu ku qaldan yahay. haddii ukaada fiiri haddii aad leedahay wax adiga haddaa soo bandhigaysid tusaalahaan waxaa leedahay moogta aniga haddaa dulmiga wax fiican u arko ee dadka kale igu raacaan dulmiga inuu wax fiican yahay, de markaas dadkaas hadday kugu raacaan dulmiga wax fiican inuu yahay, de markaas waxay noqonaysaa soomaahan waxyaabahay kugu raaceen
in tusaalahaan oo kale aniga xaaskayga oo kale maxaa la dhahay xoogtid ama aniga ay dishid oo kale ama hooyadayda aad dishid dee taas naftirkeeda waxay noqonaysaa soo maahan in adiga naftirkaa lagu samayn karo aa wax fiican u arkaysid qofka kale ma ha laygu sameeyo ruuxastaas lagu samayn karo oo wax fiican uu arkaayo so marka waxay noqonaysaa marka soo maahan waqti uun in muddo ah dad inaanan jirin meesha soo maahan okay samataro isir fahanno okay wuxuu markuu subjective yahay waa matter of opinion waa waxa yar iska opinionka adiguna saad ka dhawaajisay yani waxa jiri kara inay adiga ahaan bay kula saxan tahay adiga aragtidaada waxa weeye wixii in hooyada la dilo ama hooyada aad adigu guursato oo aad incest samayso ilmahaaga aad guursato ilmahaaga aad cunto ood hilibkiisa googayso anigu waxaan leeyahay arrintaasi objectively bay u xun tahay hadday xataa ummadoo dhan isku raacdo way xun tahay for the sake of argument adiga waxaa tidhi waxay iga tahay waa subjective bay ii tahayo waa wax opinionkayga ah wax maanicana ma jiro ama wax diidayaa ma jiro in qof kale ay arrintani la sax noqoto yacni sidaan aniguna opinion u leeyahay inuu qof kale opinionkiisu ay tahay inuu dulmiga macaansado inuu waxaanoo gafa uu macaansado wax dhib ah kama qabo marka eeg kama qabtid baan u fahmaya yacni eeg adi ahaan way ku dhibaysaa laakiin waa dareenkaaga khaaska ah sida ay anigaba inaan dulmigaa ku raaxaysto waxaasoo dhan geystaayey ay subjectively dareenkayga khaaska ah ay u tahay oo aan wax saxa u arkayo marka adi waxaan ku weydiinayaa inaan aniguna opinionkayga aan sidaas uu noqdo adiguna aad sida aad kaa u yeelatay aan aniguna opinion kaa duwanoo saasa aan yeesho ilaan wax ina kala saarayaay ma jirto wax objective oo labadeennii aan iskugu imanaynaa ma jirtee nin walba inuu dhadhankiisa wato maxaad ku diidaysaa oo aniguna ay ii dhadhanto inaan ilmahaaga cuno maaragtay aan adigana ad sidaa aad yani incest waxyaabade morally aynu u aragno inay liidato aan sameeyo waayo subjectively waxa weeyaan anigay raali gelinaysaa sida ay adiga cadaaladdu ay ku raali gelinayso maxaad diiday maxaad aniga igu qabsan kartaa waa su-aal fiican haddii ay noqoto fiiri dulmiga aniga waxaa u arkaa inay tahay wax xun adigana waxaad u aragtaa inay tahay wax fiican labadeena marka waxay noqonaysaa soomaa inuu dagaalan dhex marayo markaas aniga waxaa u arkaa dulmiga inuu xun yahay so qofkii sameeyaana waxaa u arkaa inuu yahay qof xun adigana waxaa u aragtaa dulmiga inuu fiican yahay qofkii sameeyaa wax dulmi ahna inuu yahay qof fiican markaas labadeena dagaalaa ku kala bixina wax kale meesha yaala malaha ha okay waa intaan u baahnaa waa intaa weeyaan yacni waa matter of opinion marka yani aniguna waxay sidaad u arkayso sida aanad u keergaranaynin wuxuu doono ha u rumaysto yacni haddii aan cadaalad noqonayo waxaan ogolaanayaa in sidaa aniguba aan rayigayga uu ii siiyey inaad samataro cadaaladda qadariso dee wixii mar hadduu qof iyo dooqii iyo dhadhankii ay tahay oo wax meel objective ah oo laysku madax saaraa ayna jirin oo labadeennaba inaga madax bannaanoo ina kala saarta haddayna jirin oo wax walba ay tahay qof iyo dhadhankii iyo dhinacuu raaco dee anigu wax uma arko waayo eeg waa dareenkaygii uun dareenkayga laylama sinna aniguu ii gaar yahay waxa qof u gaar ahna dee qofkaabuu u gaar yahay qasabna ma aha inay ummaddu dareenkayga qaadato waa natiijada ka dhalanaysa odhaahdaada ah subjective weeyaan akhlaaqdu haddaan idhaahdo akhlaaqdu waa subjective samatar inuu hooyadii uu guursado uu inantiisa kubsado uu ilmihiisa uu googooyu cuno waa wax ani ahaan uun dareenkayguuni uu diidaye wax sideeda u xun ma aha waa ta ka dhalanaysa weeyaan waayo laakiin maadaama aniga dareenkayga ay tahay dadka kalena dee dareenkooga leeyihiin wax aan ku qabsan karaay ma jirto maanta samatar waayo akhlaaqdii waa subjective waa qof iyo xagguu xigto waa qof iyo siday ula dhadhanto weeye isagana saasay ula dhadhantay anigana dhadhankaygii waxa weeyaan inay waxani ay xun tahay isagana way la macaan tahay labadayadii waxaan isku dagaalnay ma jirto dadka qaar shakoolaha wuu la macaan yahay dadka qaarna qadhaadh buu leeyahay akhlaaqdii markaa saasoo kale noqotay ma qaldan yahay sheekh cumar inuu shakooluhu idhaahdo waa qadhaadh may anigu ma saxanahay inaan idhaahdo shakooluhu waa macaan maya qof iyo dhadhankii buu leeyahay waa qof iyo meeshii uu la tego waa qof iyo opinionkii markaa samataro waxaad raalli ku tahay oo aad caadi kula ah
in haddii hooyada la kubsado ama ilmaha yar ee naqanaya wax magalafteeda la googooyo hilibkiisa la cuno inay wax ra'yigaaga ka soo go'ay oo adigu dareen ahaan aad u diidayso mooyaane laakiin aanad waxba ka qabin dee inuu qof kalena uu taa tu ka duwan uu la imaado waa sida caadiga ee subjective haddaad caadi u rabto waa sidaa weya natiijada ka dhalanaysa so marka waxaa okay haddaan si fiican ku fahmo waxaa leedahay tusaale ahaan hooyada in la dilo xaaskayga in la xoogo caruurteeda in la googooyo oo la cuno aniga waxaa dhahay waa wax subjective ah waa wax xun waa wax aad iyo aad u xun samatar ahaan marka aniga lii weydiiyo taas marka waxaa ka dhigaysaa wax xun inay tahay miya maxaa ku jawaab macnaha bal ii sheeg taas waa su-aasha koowaad su-aasha labaad adiga maanta aniga samatar ah haddii aad seef soo qaato matarow su-aal iweydiis waa kaaga jawaab mugta aniga waa ku weydiinaya fiiri aniga samatar ah haddii maanta seef aan soo qaato cunug yar oo 6 bil jira qoorta uga gooyo ma ii sheegi kartaa waxa ku fahmi karo taas ficilkaas aad sameeyey in uu yahay ficil objectively oo wax qiimeys aanan ku dhisnayn ma rabo yaa micnaheeda nolosha qiimeeya cadaaladda qiimeeya waxaas ma rabo maxaa yeelay qiimeysta waxaan dhahnay Soomaaliya waa wax subjective qiimeysta meel inoo dhig ma ii heesaa hard evidence wax aan fiirin karo laab aan la tagi karo aan ku soo ogaan karo cunugaas inaan qoorta ka gooyay inay tahay wax xun bal ku socdo horta su-aal baan ku weydiiyey akhlaaqdu markay subjective tahay waa qof iyo opinionkiisa waa qof iyo dhadhankiisa waanan filayaa inaad igu raacsan tahay taas haddii ay qof iyo dhadhankiisa tahayna dee qof walba sidaad adigu opinion iyo ikhtiyaar iyo dhadhan u leedahay ayuu qof walba kiisa gaarkaa u leeyahay marka adi ahaan waxa kula xun inaa hooyada iyo arrintaasi ay sidaa ku dhacdo laakiin maadaamaan aaminsanahay in waxaan akhlaaq la leeyahay oo wax sax iyo waxaan qalad la leeyahay ay qofba uu si u arko oo qofna uu u arko in ilmaha yar la googooyo oo qoorta laga jaraa uu u arko qalad qofna ay ra'yigiisa iyo opinionkiisa uu subjective u yahay uu tusayo inay sax tahay dee labada qof waxaan ku kala saaraa ma jirto anigana dareenkaygunbaa i tusay bay ka dhigan tahay dhadhankaygunbaa ila xumeeyey qofka kalena sidaan aniga opinionkayga xor ugu ahay ayuu xor ugu yahay wax aan ku qabsan karaay ma jirto waxaan ku idhaa markaa qofkii markaan qabsanayo war aniga sidan bay dareenkaygiibaa sidan ii tilmaamaye jooji miyaan ka idhaahdaa maya because dareenku waa wax subjective oo qof u gaara adiga kaagu hadduu ku yidhi kaygu ima leh kaagana wax iga galay ma jirto waa halka ay dooda ku xidhmayso subjective taasi waa cashar ta kale ee tiri cadaalad iyo nolol baan qiimeeyaa waa laba contradiction oo isdiidaya cadaalad baan qiimeeya nolol baan qiimeeya nolol baan qiimeeyaa waxyaabahan kaa maqlay waxaa ka mid ahaa inaad absolutely si kastaba uga soo horjeedo in naf la dilo cadaaladuna waxay keensataa in qof naf gooyey la dilo anigu cadaaladdu waa maxay waa in dee sheekh cumar baa naftiisii dilay cadaalad waxa ah in anigana intaa in leeg intaa aan u geystay lay geysto haye waa laba isdiidaya haddaan cadaalad fuliyo waa inaan noloshiisan qiimo tiraa sida uu u qiimo tiray nolosha cumar ila noloshan qiimeeyaba tiri qof criminal a imiday noloshii sheekh cumar ayuu noloshiisii qiimeyn waayey wuu dilay waa inaad adiguna ku dhaqaaqdayood ka guurtaa mabda'an ah ilowba ilaa noloshu waa muqadaso yaan cidna la dilin waa inaad ka guurtaayo aad cadaalad fulisaa labaduba ma wada jiri karaan at the same time taa adiga isku burburinayo waa contradiction tan kaleed aniga i weydiisaya tiri wax objective la maxaan ku qancaa cadaaladdu samatarow laab igee baa tiri waxaad ii sheegtaa cadaaladdu waa imse carbon waa imse molecule maxay ka samaysan tahay metal noocee ka samaysan tahay ii sheeg si aan laab u geeyo ilaan waxaa jirta waxyaabo laab loo bandhigi karo cabirkiisa laab aynu iskula naqaano iyo waxyaabo waxaa jirta qiyam eeg tan objectiveka markaan objective ka wado waxaan leeyahay anigu war samatarow in inta lagu soo dhaco walaashaa la qowraco hooyadaa hortaada lagu kubsado ilmahaagana hilibkiisa lagu jarjartoo la cuno waa tu anigu aan aaminsanahay inay qaldan tahay haddii 99% bulshadu ood adigu ku jirtahay ay isku raacday inay saxsan tahay waa mid qaldan maxay ku qaldan tahay
waxa weeyaan naftu iyo noloshuba waxa weeyaan ilaahay baa idhi walaa taqtulu nafsa allatii xarama allahu calayha yacni ilaahay baa xurmo siiyey si kaste hadday bini aadamka iskugu raacaan in naftaasi ay mudan tahay in la dilo waa mid qaldan maxaa objective ka dhigay opinionkaaga waxaa ka madax bannaan ilaahay oo sharciyeeyey oo sharci ka dhigay inaan nafna la dilin so ilaahay bay ku xaaraan tahay marka wax anigina iga madax bannaan adigina kaa madax bannaan weeyaan adiguse marjiciyadaasi ma haysatid opinion baa kuu soo hadhay ood haysataa opinionkiina waa anigan ku idhi akhlaaqdii dhadhan baad ka dhigtaye sidaa shokoolahay qofna la qadhaadhahay qofna la macaan tahay aniguna ilmahaaga yar haddii uu qofi imaado oo uu sidaa iyo wax alla waxa aan ku sheegay oo dhan uu ku sameeyo de haddaan subjective aan aaminsanahay anigun subjective imaha ummadoo dhan bay subjective u tahay ra'yiga iyo waxayga aan aniguna xor u haysteen aaminsanahay ayuu qof walbana xaq u leeyahay dhadhankayga iyo dareenkaygu qasab maaha inaan dadka ku qasbo markaa samatarow waxaan kusoo weydiiyey 2 su'aalood kow contradictionka ka dhexeeya principalka aad wadatay maanta dhan ee ah cadaalad iyo noloshaan qadariyaay noloshu ilooba ilaa in la dilo waan kasoo horjeedaa wax isqabanaya ma aha 2 akhlaaqdu waa dhadhan baa tiri waxaa ka dhalanaysa inay dhadhan ii tahay in ilmahaaga iyo waxaasoo dhan in eega tusaalaha kaasiya lagu sameeyo qofkuna sidaad adigu xaq iyo dareen ay kuula xumaysay ay qofna dareenkiisu ay u tahay inay farxiso qasabna ma aha inaydin kulantaan marka bal iiga jawaab markii horena waan ku weydiiyey su'aal baad igu keentay waana kaaga soo jawaabay bal iiga soo jawaab waa maasan tahay su'aal fiican baa keentay meesha waxaa dhahday suurtagal ma noqonayso qof in uu qiimeeyo nolosha isla markaana uu qiimeeyo cadaaladda haddana uu dhaho qofkaas qof in la dilo way xun tahay waxaa dhahday haddii maanta qof la dilo qofkaas la dilay cadaalad loo samayn karaa waxay tahay qofkii dilay in la dilo soo saas maahan axmed doctor axmed deeqo waa fahmay waa maasan tahay axmed deeqow cadaaladda haddii asaas tahay hadday tahay qofkii il bajaa in il loo bajiyaa qofkii wax dilaa in loo dilaa maanta hadduu qof kufsadaa qofkii la kufsaday cadaaladda loo falaayo waxay noqonaysaa soo ma ahan qofkii kufsaasan in la kufsado marka qofkaas yaa kufsanaya marka good question waxaad tiri qofkii qof kufsada in la kufsadaa ka dhalanaysa haddii cadaaladii ay noqoto in hebelna hebel loo dilo waayo taa waan ku hayaa ku soco su-aalahaygii ka jawaab waa gartay su-aashaada igu soo celi tii koowaad maxay tii labaadaa ka wadaa igu soo celi maxay ahayd su-aasha waa madax wax yar oo iga hoos baxday yacni topiga waxaynu u soconnay akhlaaqdu inay subjective tahay iyo objective tahay adigu waxaad tiri akhlaaqdu waa subjective waxaana ka dhigaysa qasabba ilaa ay tahay in yacni lagula dareen noqdo oo lagula naco wax aad adigu diidan tahay oo ah in farax xumayn iyo dhib loo geysto reerkaaga oo aad ka dhigaysa yacni ilowba ilaa waa in si objective loo diidaa yacni eeg si kale consequenceska iyo waxa aad rabto dadku inay ula dhaqmaan arrinta adiga kusoo gaadhay kuu gaarka ah waa in loo condemn gareeyaa si objective aad rabtay at the same time-na waxaad lahayd waa subjective waa wax qof walba uu akhlaaqda dareenkiisa gaarka ah uu u wato ilowba ilaana waa wax wada xunan ku qabsan karo dadku inay sidaa iyo sidaa ii geystaan marka labadaaba iyaguna waxa weeyaan inaad tiraa waa subjective iyo ummad baan ku qasbayaa de wax is noqonaysa ma aha si fiican horta marka loo imaado wanaagga iyo xumaanta hadday ka imaado ilaahay iyo hadday ka imaado dadba qiimeysaa ku dhisan tahay adiga hadda qiimeyskaas waxaa ka fogeysay dadkii oo waxaa dhahday aniga akhlaaqdayda qofka go'aaminayo ficil inuu xun yahay inuu fiican yahay waxaa dhahda waa ilaah dee adiga waxaad leedahay ilaah qiimihiisaa ku socnaa macnaheeda ilaahayaa wuxuu qiimeeyey nolosha inay tahay wax fiican dadka in la dilo inay tahay wax xun cadaalad in la falo inay tahay wax fiican in been la sheego inay tahay wax xun okay anigana waxaa adeegsan karaa mid taas la mid ah oo waxaa dhihi karaa haddii 2 qof ay isqabsadaan qof saddexaad aan labadaas qof ahayn ayaa la keenayaa oo waxaa la leeyahay labadan qof qofkii saxan iyo qofkii khaldan bal adiga maxaa la dhahay qiimey maxaa yeelay qofkaas saddexaad
labada qof is haysato wuu ka madax banaan yahay soo maaha soo marka labadaas qofkaas saddexaad loo keenay wixii iyaga ka dhexeeya qiimeynayay waxa uu dhaho waxay noqonaya objectives sidaas sida ilaahay uu dhahay oo kale dilka wuu xun yahay si lamid ah marka weli su-aasha kama jawaabayso ah maxaa haysaa hard evidence oo aan isla eegi karno waxa markay objective yihiin waa wax loo haayo soomaan factual evidence waxyaabo noocaas haddii aa haysid qasab ma ahan ra'yiga muhiim maaha markaas waxaan fiirinaynaa okay cunugaas 6 bil jiro seefa qoorta ugu gooyay wax uu galabsaday ma lahan okay taas ficilkaas aan sameeyay inuu xun yahay labadeena waxa isla fiirin karno oo isla arki karno oo inoo sheega isla markiiba yaa markaa macnaheeda jirkaas cunugaas qoortiisa kala go'santaa markaa aragno isla markiisaan u fiirino waxa inoo sheega okay ficilkaas wuu xun yahay daasi maarar qofkii sameeyay qof kale wuu xun yahay maxay tahay waxa noo isla markaa noo sheega tusaale ahaan fiiri hadda dabka inuu kuleel yahay markaa taabano isla markaa taabano wuu noo cad yahay Soomaan waa kuleel qofka la keeni karaa asana wala taabsinaya waxa leeyahay maxaa dareentay wuxuu leeyahay kuleel aan dareemay qof saddexaad qof afraad qof shanaad qof lixaad qof boqolaad la keeni karaa kulli waxay leeyihiin oops dabka wuu kuleel yahay sidaas la mid ah marka waxaan rabaa ina ii sheegtid wax noocaas oo kala maaragtay jir la dilay marka aan kor imaano asaan u fiirino jirkaas wax isla markaa saan dhax u saar noo cadeenayo waxa jirkaas ku dhacay inay yihiin wax xun aa rabaa inaad noo sheegtid haddii aadan helin ee keliya unay tahay ilaaha saas dhahay de markaas waxay noqonaysaa in waxaa dhihi karaa Robert iyo John saas dhahay labadeen isku meel taagnaynana markaas weli waxa aanaysa subjective waxay noqonaysaa Robert's maxaa la dhahay opinion versus maxaa la dhahay Allah's opinion meesha micnaheeda wax oo soo kordhisa ma laha moogtahay keliya un dadkii ka fogeysay anigana maxaa la dhahay anaa iska fogeeyay marka waxaan u maleynayaa inaan kaaga jawaabo su'aashaada hadda absolutely xataa umaba dhawidba maxaad ka jawaabtay su-aashiiba ma taaban waad ku meereysatay waxyaabo kale su-aashaan ku weydiiyey ba ahayd samatar akhlaaqda waa laba mid baa tiri waa subjective ama objective subjective markaad leedahay opinionka iyo dadka iyo ra'yigooga kama madax banaana malaha fasiraada iyo sharaxaada badan ee siinayo ayaa laga yaabaa inaad ku dhex lumayso waxaan ku weydiiyey si toos ah so adigu subjective yacni anigay ii gaar tahay so ugama jeedido aniga iyo bini aadankaygaasi ma dhaafsana aan ahay cid kalena sidaa anigu aan dareen iyo xor iyo opinion u leeyahay ayay u yeelan kartaayo waxba kama qabo so taa ma lihid waxaa u maleynayaa hadalka daafka ii gelinaya moogta waxaa ku dhahay adiga su'aal toos aniga i weydiisay moogta shakhsiyan su'aal i weydiisay samatar may shakhsiyan su'aal aniga i qusaysa i weydiisay moogtahay waa kaaga jawaab si toos ah waxaa ku dhahay aniga okay jawaabta say waa opinionkaaga diidan tahay yani sheegtay inaad diidan tahay may su-aasha anaa i weydiisay moogtahay fiiri su-aasha anaa i weydiisay moogtahay aniga waxaa ku dhahay morality ama akhlaaqda subjective waaye maxaa yeelay waxay ku dhisan tahay waxay yihiin waxyaabo subjective ah sida marka waxyaabaha la qiimeeyo adiga waxaa leedahay fiiri ani objective morality waa jirtaa maba dhihin fiiri ani waxaa ku leeyahay any morality may waa kusinaya fiiri waxbaa ka dhalanaya subjective markaan idhaahdana waxbaa ka dhalanaya markaan idhaahdo akhlaaqdu waa objective waxaa ka dhalanaysa inaad qaldan tahay ama inay haddii opinionku yani opinionka bini aadamku muhiim ma aha haddii ay objectively ay sideeda ficil u xun ay tahay ilmaha yar in kurka laga gooyo ee imikadaa dhashay waa wax sideeda u xun waa wax aan isbadbedelaynin waa wax aniga iyo adiga waxa aynu ku heshiino ka baxsan yacni haddii aynu ku heshiino in kurka laga gooyey inay saxsan tahay waan qaldannahay bay ka dhigan tahay haddii yani wax kastoo ilmahaasi dilkiisu sidiisu u xun yahay waa sidiisaasu u xun yahay ta kale waa ta ka dhalanaysa haddii objective akhlaaqdu tahay haddii laakiin aad tiraahdo akhlaaqdu waa subjective waa waxa bini aadamka iyo uu ku heshiin karo bini aadamka uu qofba ra'yigiisa wadan karo chinana ay maanta ku heshiin karto inay carruurta in la googooyo la cunaayo ay caadi tahay iyo weliba wax akhlaaqiyan subjectively aad u fiican ah ayay la tahay China halka Mareykankuna uu diidi karo ugu dambeynna wixii maadaama cid iyo dhinacay ka eegta uu yahay
dee waa qof iyo dhinacay la riixato oo cidna cid ma ilzaamin karto ilan the same weight weeyaan opinionku yahay ra'yigaaga in leeg oo miisaana ayuunbuu kanba leeyahay kan maxaa kan ka doorbiday kan ka fiicnay waa labada natiije ka kala dhalanaysa waa dareemaysa adiguna soo ma soo natiijadaasi kama dhalanayso samataro su-aasha ku weydii laakiin igama jawaabin aniga laba su-aala kaaga jawaaba waxaa ku dhahay fiiri qof kufsadaa maadaama adiga cadaaladda u aragta inay tahay qofkii qof dilaa in la dilaa asagana may samatar very good aad baan u qadarinayaa su-aashaada laakiin mid baa jirta waxaad moodaa in su-aaluhu ay hal dhinac un ka socdaan su-aashan aan ilaa iminka isla taagannahay anu bilowgiiba baan kusoo weydiiyeyba yani markastoo su-aal soo weydiiso next line markaan qabsado waan kaaga jawaabayaa su-aal kalaan ku weydiinaya war bilowgii baan ku weydiiyey akhlaaqdii waxaa tiri waa subjective waa qof iyo siday ula dhadhanto sheekh cumar sidiisaas buu u jiraa jiritaankiisu waa sidaa haddaan inagu saan doonno ugu heshiino inaanu jirin sheekh cumar waa wax sidiisii u jiraya laakiin fiiri dhadhanka shayada waa wax cid walba uu si ula dhadhamo shakoolahaasi qofna waa la qaraar yahay baan ku yidhi qofna waa la macaan yahay erayadaa aan leeyahay adiga afkaaga ka soo baxeen oo idhi qofna dulmiga waa la fiicnaan karaa oo waxba anigu kama qabo akhlaaqdan wataana waa subjective oo waa mid ii gaar ah mar hadduu wax kuu gaar yahay cid wax kuma qasbi kartid waa ta ka dhalanaysa wuxuu hadduu laakiin kaa madax bannaan yahay oo objective yahay ilmaha yar in kurka laga jiray hadday objectively wrong tahay cid walba way maqlaysaaye dee muhiim ma aha waxaan aniya adigu nidhaahno sideeday u qaldan tahay sideeda ayay u qaldan tahay laakiin haddii aad tiraa waa subjective ilmahaasina uu ilmahaagii yahoon hortaada saa ugu cuncuno waxaa ka dhalanaysa in murugada iyo dareenka iyo inay xun tahay ay tahay un dareen kuu gaara iyo dhadhan kuu gaara aniguna inaan ku raaxaystay ay tahay wax ii gaara adna ma qaldani adna ma saxsanid waa inta ka dhalanaysa ilan ugu dambeyn waa subjective qof iyo dhinaciisii weeyaan marka haddii ay sidaas tahay ismaba haysanaba samataro intaaban markaa maanta dhan doonay inaad iiga jawaabto ilaa halkan baa isla soo gaadhno kolba su-aashaan ku weydiiyo su-aal unbaad iigu soo roogaysaa su-aalna su-aal loogama jawaabo ani su-aalahii hore uga jawaab mogta waxaa ku dhahay fiiri akhlaaq oo dhan waxaa u aqoonsanahay inay tahay subjective micnaheed taas meel loo dhaafaya miyaa jirta maxaa iga sugaysaa micnaheed inaa ku dhaho miyaa objective waaye aniga waxaa ku dhahay waxaa aaminsanahay wax objective morality la dhaho maba jirto bas anna mid baan rabaa eeg anigu samataro halkan uma iman su-aasha ku weydiina balhamar iga jawaab waxaa rabaa jawaabtaada inaa fahmo waxay noqonayso inaa maqlaara waxay noqonayso qof kufsadaa mala kufsanaya yaana kufsanaya okay wax kasta waa kaaga jawaabaya samatar imikadaabaan taa kaaga jawaabaya mar haddaad halkan ka jawaabtay intaan u baahnaa een maanta dhan doonayana intaabay ahayd inaad tiraahdo war akhlaaqoo dhan subjective weeyaan yacni qof iyo siday ula dhadhantay la tahay markaa samataro inta yareen gabagabada intaana su-aashaadina kaaga jawaabin inta yaran ku weydiini waxa weeyaan sow sidaa aan idhi iguma raacsanidoo ilmahaaga haddii hortaada lagu cuno ay dareen iyo murugo adiga kugu jira un ay tahay qofka kalena inay raaxadani ku jirto cidna ugu dambeyn ayna cidna sideeda u saxsanayn cidna sideeda u qaldanayn qof iyo dhinaciisa ay wadato sow taa iguma raacsani maya taas waa kaaga soo horjeeda kuguma raacsanay intaan u baaha eeg intaan maanta dhan ku weydiini waxa weeyaan maxaad igu qabsanaysaa markaa idigu haysataa dee su-aashana i weydiinaysaa moogta adiga waxay leedahay soo saas uma aragti aniga waxaa ku leeya uma arkisaas maxoog ma afka ii gelinaysaa marka eeg adigu waa sidaad u aragto anugu waa eeg waan ogahay adigu way kula xun tahay laakiin sow aragtidaada oo qura ma ahin oo yacni adigu sow kuguma koobno muhiim ma aha dee ugu dambeyn kan ku geystayna maya aniga uguma koobna dabcan okay adiga shan aniga kaliya uma koobna haddii maanta qof la dilo qofka la dilay familkiisa reerkiisa kaliya un kuma koobna dadka waxay quseysaa oo dadkaas la degan adiga weligaa ma arkin maxkamad ma tagta weligaaga dad waxay u maadaan booliiska micnaheeda ma taas waa dadkaa degan ee ku heshiiya dad kaloo meesha aan deganin laakiin inay kuu geystaan waxba kama qabtid dee soo ma axmedeeqow fi dadkaas naftirkooda xitaa waxay aaminsan yihiin ficilkaas la sameeyey inuu wax xun yahay adiga hadda hal qof ma ii sheegi kartaa xitaa dadaa garanaysa ahaadaan dad adiga naftirkaa ku jira hal qof ma ii sheegi kartaa oo u arko waxyaabaha hadda aad tirayso maarka inay yihiin wax fiican hal qof ii sheeg balwaka hal qof samatar anuu waxaan leeyahay baa ah
xataa haddii ay isku wada raacaan bini'aadamku inuu waxaasi uu xun yahay weli waa subjective oo berri eeg haddaba maanta hadday isku wada raaceen boqolkiiba boqol bini'aadamku in carruurta kurka laga jariyo hadday isku wada raacaan inay xun tahay berrina ay isku wada raacaan inay fiican tahay adi maxay kula tahay xaggaaga sow berrina kula fiicnaan mayso ileen dadku waxay isku raacaanba akhlaaqdaada go'aaminaye berri hadday dadku isku raacaan inay hooyooyinkood guursadaan laakiin maanta ay ku heshiiyeen boqolkiiba boqol berrina boqolkiiba boqol ku heshiiyaan inay ubadkay dhalaan ay guursadaan sow kula xalaal maaha adi sow kula sax noqon mayso axmed mise deeqo akhlaaqda axmed deeqo fiiri waxay ku xiran tahay dadka maaragtay wax isku raacayaan ulajeedka leeyihin micnaheeda dadka hadda ulajeedka leeyihin waxaa waaya sooma inay noolaadaan soo marka macquul ma noqonaysa inay isku raacaan inay kurka iska gooyaan micnaheeda taas waxay ka hor okay imaanaysaa soo maahan waxa ulajeedka ee nolosha ka weliga leeyihin laakiin fiiri samatar weliga okay hamar way okay jireen may ogsinaya fiiri haddii ay jiraan dad oo isku raacayo kurka in layska gooyo inay tahay wax fiican dee dadkaas ma ahan dad rabo inay noolaadaan ya waa dad rabo maaragtay adduunka inay ka tagaan dadkaasoo kale dee micnaheeda maxaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa malaha samatar Soomaali kurka iska goonayaan waxay then adduunka way ka tagayaan laakiin samatar fiiri waa kusinaya fiiri laakiin haddii uu jiro qof rabo in uu noolaado qof samatar qiimeynayo nolosha samatarow okay su-aasha nolosha maba su-aasha bal iga jawaab doctorka su-aasha maantana waa igu wareegsanaysaa moogta su-aasha iga jawaab haddii qof la su-aal baa lagu kufsado weydiiyey meel qofkii kale ku kufsaday weydiiyey mala kufsanaya asagana yaa kufsanaya bal ii sheeg su-aashaas waa mahadsan su-aalaan ku weydiiyey su-aashii waa ka boodday kuwa intaan u baahanahay baa ah halkaa aad soo gashay eg bini'aadamku waxay isku raacaan baa go'aamiye bini'aadamku waxaa tiri yani inay kurka isku raacaan ma dhici karto inay ku heshiyaan waa caadi way dhici kartaa siday hadday ku heshiin karaan inayna kurka iska jarin berina way dhici kartaa iyo wax diidaya ma jirto inay kurka iska jaraan inay ku heshiiyaan akhlaaq markaynu ka hadlayno kama hadlayno bini'aadamku waxaynu ka hadlayno waxa weeyaan waa should or shouldn't sidaa ma la yeelaa mise lama yeelo waa waxaynu ka hadlayno marka taan ku weydiinaya maanta dhan baa ah haddii aad adigu uga saldhigtay oo tiri ilowba ilaa in bini'aadamka cid alle cidaad axmed deeqo weydiiso ayaa caddayn u ah oo igu raacsan ra'yigayga iyo waxa aad sheegaysay inay xun yihiin ummadoo dhan baa diidan taasina caddayn bay u tahay waxaan kuleeyahay baa ah haddii bini'aadamku maanta ay boqolkiiba boqol saa ugu heshiiyeen in hablaha yaree 6 jirkaynu dhalnay ama hablaha yaree 6 bilood jira ee imikadan dhashay in la kubsado hadday maanta boqolkiiba boqol bini'aadamka aan ka waayay inay ay ku heshiiyeen taas berri hadday ku heshiiyaan ka waran weli shaygii ma saxba berri hadday isku raacaan inuu sax yahay ka waran baan kuleeyahay ma noqonaysaa waxaad adiguna ku raacayso maya aniga kuma raacay waxa markaa bini'aadamka ka reebtay soo maaha fiiri laakiin waxaa soo bandhigaysid maarkno adiga micnaheeda wax oo caddeyn la socota malaha moogta aniga caddeyntada waxay tahay waxaa ku dhahay akhlaaqda waa subjective iyadoo ay saas tahay dadka boqolkiiba 99 waa isku raacsan yihiin waxyaabaha subjective-ka ah in ay waxyaabo fiican ay leeyihiin waxyaabo xun ay leeyihiin dilka oo kale hadda waa subjective inuu xun yahay laakiin boqolkiiba 99 dadku isku raacsan yihiin marka adiga laakiin waxaa soo bandhigaysaa maarkin oo ahaan dhinaceeda kale markaas waxaa leedahay haddii ay dad ku heshiiyaan dilka inuu fiican yahay dulmiga inuu fiican yahay de hadda fiiri haddii ay qof kugu raacdo ma tada aniga kugu raaco samatar ah dulmiga inuu fiican yahay de hadda qoorta kaa gooya wax fiican baa sameeya markaas soomaan adigana taas uma inay wax fiican tahay soo marka haddii aaminsan tahay dulmiga wax fiican inuu yahay aana rabtid inaad sii noolaatid de markaas waa iska hor imaanaysaa ya waali caadi ku sugnaanaysaa markaas marka su-aashay bal iga jawaab haddii qof uu qof kufsado qofkaas mala kufsanaya yaana kufsanaya bal su-aasha iga jawaab maantana waa iga siiba baxsanaysaa wallahi waa kaaga jawaabaya halkanna kama tegi anigo kaaga jawaabay laakiin mid baa jirta dadkuna way dareemayaan halkaad kolba ku soo lalayso su-aashan waa derbiga keliya doonayso inuu dood kaliya baab kale uu ku furmo laakiin taan ku weydiinayay subjective iyo objective war dadkiiyo waa kuwa halkaa u joogee subjective iyo objective ba alif ba kuma bilowno maanta dhane maxaynu ka wada doodnaa anu waxaan garan lahay waxaan isku haysano akhlaaqdii waa subjective iyo axmed deeqow inaad sidaa iyo sidaa iga yeeshaa iyo sidaa la yeelaa waa qalad de eg waa subjective markaad leedahay waa sidan aan kuleeyahay bini'aadamka eg adiga adaa daliil kasoo dhigtay oo idhi war ilowba ilaa boqolkiiba 99 cid alle cidaad garanaysa axmed deeq hadaad soo weydiiso kuguma raacsana annagu waxaan leeyahayba ah anu in principle ilmo yaroo 6 jira in la kufsado ilmo yaroo 6 bilood jira in la cuno hilibkiisa la googooyo hadday ummadda oo dhani isku raacdo waa wax sidiisa u qaldan objectively in principle qaldan baan leeyahay hadday maanta ku heshiis yihiin ummaddu oy berri
maantana wuu qaldan yahay oo heshiis bay ku yihiin berri hadday ku heshiiyaan in ilmaha la googooyo cagsiga ahna way qaldanaanayaan waayo sax iyo qaladku wax agtayda isbedbedelaya ma aha waa wax objective oo aan u aaminsanahay weeyaan adi laakiin maadaamuu subjective yahay wixii uu yahay qof iyo dhinacuu u arko qof iyo opinionkiisii ay waxaagii ay kula tahay dee walaalo waxaa ka dhalanaysa maxaad nagu haysataa hadhow in carruurtaada hortaada lagu kubsado la cuno qof bay la dhadhan macaan tahay ummadda ku heshiisay inay maanta carruurtooda dhashay ayna kubsanna berri hadday ku heshiiyaan cagsigeeda waad raacinun ilaa 99% ayaad adigu dabar socotaa had iyo jeerood raacsanaysaa haddaanad adigu raacinayn 99% oo ay iskaaga iyo dareenkaaga keligaa ay tahayna waa opinionkaaga opinionkuna waxa weeyaan eg it doesn't matter what you think weeyaan waxa adiga aad ka fikirayso waxba igama gelin mar haddii aniguna dareenkayga aan u socdo adna aad inoo banaysayoo tiri sax iyo qalad wax la idhaahdo ma jiro cid iyo dareenkeeda waxay sax u aragtaa saxa waxay qalad u aragtaa qalada dee hadalka waxaa ka dhalanaysa wax sax la idhaahdo iyo wax qalad la idhaha ma jirte waa qof iyo dhinacuu u arko marka hebelna uu ku saxsan yahay inuu carruurtaada googooyo yani waxaan jeeda hebel kuma qaldana adna kuma saxsanid inaad diiddo waxaad ku saxsan tahay kama dhigayso way berri baad yeeli kartaa sahan dambe buu dareenkaagu isbedeli karaa wax yar iska subjective weeyaan markaa subjective iyo objective haddaynu ka kala hadlayno inaynu isqabsanaba ma aha samatarow adaa baneeyey waxaasoo dhan raalli haddaad ku tahay anigu waxba kama qabo waxaasoo dhanba adigay dareenkaaga ku tahay ummadda kale umaan ku leenahay waxaad ku qabsataa ma jirto markay sidaa u fikiraan sidaadoo kale ee ay fuliyaan fiiri axmed deeqow sidaa u hadlaysid maaragtay meesha wax hadalka meeshuu kaa maray ma fahansanin runtii aniga waxaa ku dhahay akhlaaqoo dhan waa maxaa lahay subjective adiga hadda waxaa ka hadlaysa waxaa leedahay Soomaan in principle maxaa waaye wax objective ah so subjective ma marka qofka leeyahay ma run in principle ma run okay principle maxaa what principle la isticmaalaysaa ma waxa leedahay nolosha qiimeeyaa dee hadda waxaa ka hadlaysaa qiimeyn dee hadda isku weyna Soomaan wax aanan qiimeynaynin waxaa rabnaa hard evidence ma haysaa haddii aadan haynin dee principle iyo value waxaas dhan waxay hoos imaanayaan qiimeyn waa subjective wax qiimo oo micnaheeda qiimo ku dhisan oo objective ah isheeg hal wax isheeg bal waayahay adiga hadda mideeda kale fiiri waa ku dhameynaa fiiri mideeda kale waxaa u malaynayaa newskii meelahaas inaa fiirsatid adduunka dagaalaha ka jira Soomahan dagaaladaas maxaa keenay dagaaladaas waxaa keenaa waxay tahay in morality subjective ay tahay dadka inaan waxba ku heshiinaynin waxyaabaha wixii fiican iyo wixii xun marka taas iyo in maanta aadan soo helaynin qof aaminsan dulmiga wax fiican inuu yahay dilka wax fiican inuu yahay maxay ku tusaysaa taas in morality ay subjective tahay iyadoo subjective ay tahayna weli dadka isku raacsan yihiin so marka niyow adoo mahadsan su-aasheedii iga jawaab maantana waa imay meerinaysaa haddii qof la kufsado qofka kufsaday mala kufsanayaa haddii haa tahay yaa kufsanaayo ku soco good samataro haddaba waxa weeyaan intaana su-aashaadiina kaaga jawaabin maanta dhan su-aashaan ku weydiiyey su-aal baa doonaysa inaad kaga jawaabto xataa eg axmed culuqow war subjective iyo objective baa maanta dhan u kala sharaxaya anigu waxaan ku leeyahay samataro inaad aaminto akhlaaqdu inay subjective jawaabteeda soo noqonaya bal hamri iga jawaab su-aasha waa sugaya moogta maanta 15 minutes camal ka soo wareeg ku weydiinaya su-aasha ilaa hadda ma su-aasha ma tan waxaad jeedaa kufsiga qof hadduu kufsado ma la kufsanayaada qof haddii uu qof kufsado kasoo qaban ninaa wuxuu kufsaday naag okay ninkaas naagta firi may su-aasha ku weydiinaya waa kufsanaya ninaa waa kaaga jawaab may waqsinaya waa su-aasha ku weydiinaya bas waa ku weydiinaya bas firi ninaa wuxuu kufsaday naagta uu kufsaday ugu jawaabin su-aasha in cadaalad loo falo soo marka ninkaas ma la kufsanaya asagana yaana kufsanaya bal ku soco waa ku fahansanaysa matar lama kufsanayo cadaaladdu xaggaygana waxaan loo kufsanaynin cadaaladdu xaggayga waa wixii uu ilaahay sharicay weeyaan waa wax objective ah ma aha wax subjective oo hebel iyo hebel ay go'aaminayaan ma aha cadaaladdu markay dilka noqoto ilaahana abuuray waxa uu gooyey oo uu idhi cadaalad eg opinionkaagi ma aha opinionkaagi ma aha dareenkaagi ma aha waa wax labadeennaba inaga madax bannaan waxa uu go'aamiyey ka wax dila in la dilo kufsiga sharciyo iyo xeerar u gooniya ayaa jira oo uu ilaahay usoo dejiyey waana wax ilaahay ka imiday
cadaaladuna xaggayga waa min allah waa wuxuu ilaahay sharciyey waa caadil wuxuu ilaahay dulmi ku tilmaamayna waa caadil waana micnaha dhanayn maanta dhanku barayee ah objective morality adi intaan maanta dhan kugu celcelinayo ee dadkanoo dhan iyo ummadani ay kaa yaaban tahay samataro waxa weeyaan waxaad ka tiri dadkii waar akhlaaqdu yaa axibaa'i akhlaaqdii waxaan idin wadaa waa qof iyo siday ula dhadhanto marka eg qof iyo siday ula dhadhanto waxa weeyaan akhlaaqdii waa sida shakoolaha hebelna way la macaan tahay hebelna way la qadhaadhaan kartaa hebel hadday la qadhaadhahay muu qaldan yahay may hebelna macaan buu shakoolihii u arkaa midkeebaa qaldanoo midkeebaa saxsan axmed shakooluhu waa la macaan yahay sheekh cumarna waa la qadhaadh yahay dadow labadooda keebaa saxsan midna ma saxsana waayo muxuuna midna u saxsanayn dhadhanka waa lagu kala duwan yahay doonka waa lagu kala duwan yahay adigii waxaad halkan noola timidoo tiri akhlaaqda dhan bini'aadanow eed ku kala socotaan waa wax qof iyo si ula dhadhanta inaad caruurtiina cuntaanood googoysaan waa wax idinka qofna dhadhankiisa u ah ku kalena uu xalaalaysan karo ugu dambayn midna ma saxsana midna ma qaldana inaad hooyooyinkiin guursataan caruurtiina hablihiina yaree aad imika dhasheen ee 6 bilooda inaad ka sinaysataanna waa wax idinkuun aad u aragtaan inta diidana ay u aragto un dhadhankooda sidaa shakoolaha kan kalena oo la macaanaan karto ugu dambaynna cidna ma qaldana waa hadalkaad nala hor joogto ya anna intaan kuleeyahay baa ah objective anigu kaama raba inaad qirto kaama rabo kugumana qasbayo ee waxaan leeyahay waar haddaad tiri subjective sidaabaa ka dhalanaysee sidaa haddayna ka dhalani bal noo sheeg waxa ka dhalanaya maxaad nagu qabsan kartaa maxaad ku qabsan kartaa qof waxaasoo dhan sameeyey kuma qabsan kartid waa dhadhan baaba tiriba dee fiiri soo taamad qiran axmed deeqow haddaydii markaa ka hadlayna dilka waxaa dhahday qof markuu qof dilaa waxaa cadaaladda in loo dilo haddana waxaad leedahay qof markuu qof kufsado cadaalad maa in qofkaas asagan la kufsado marka waxaa u malaysaa inaas ka hor imaanaysa haddaa hadalkaa dhahday wuxuu ka hor imaanayaa hadalkii haddaa dhahday oo ahaa qof hadduu qof kufsado nin hadduu naag kufsado ninkaas lama kufsanaayo laakiin hadduu nin dilo ama nin naag hadduu dilo waa la dilayaa micnaheeda waa inconsistent wax sidee macquul ku tahay maxaa hadalka daay maxaa ugu noqotay marka samatar shoodhaygii anigaa ku fahansiinaya imikadanna waan ku hadlay laakiin waxaa la yidhi walahum aadaanun laa yasmacuuna biha eg anigu akhlaaqda aan waxaasi kula imiday een cadaalad iyo cadaalad darro halkee baan ka qiimeeya maxaa ii miisaan ah maxaa akhlaaq miisaaneed ah oo axmed deeq ahaan aniga aan u arkaa waxaasina waa cadaalad waxaasina cadaalad ma ah waynu ku kala duwannaho adigu waxaad leedahay dhadhankayga iyo dookhayga cadaalada dhadhankayga iyo dookhayga waxay ku geysaan ku yidhi carruurtaada inuu nini u arko in la xalaalaysto oo iyagoo 6 jir uu hortooda kugu kufsado kugu hor jarjaro isagana dhadhankiisa u saamaxay sida shakooluhu uu qofna ula macaan yahay isagana ula macaan tahay adiga inay kula qadhaadhaato arrintaasina dee waa wax adiga uun ku gaaro adiga aan ku dhaafsanayn ugu dambayn isna kuma qaldana inuu waxaasoo dhiba kuu geysto maadaama dhadhankiisuna uu xukumayay adiguna kuma saxsanid inaad tiraahdo waxaan lay geystay waa qalad waana ta aad halkaa ka qirtay haddaanad noo cadaynin waxa aad ku diidan tahayd qofkaa ku qasbayso waa qalad fiiri aniga xaggayga micnaheeda aniga maxaa xaggaygaad weydiisay hadda waa iga been sheegaysaa ma fiiri waxaa ku dhahay aniga sababta waa khalad ku dhahay ma fahmin waxa hadda iga been sheegaysaa aniga waxaa ku dhahay in qof la dilo waa khalad qofkii qof dilaa dhahaa taas khalad ma ahan aniga waxaa leeyahay waa khalad samataro ila meeraysadu ma fiicna kolley dadkuna way maqlayaan waqtigayguna waa qaali aniga waa ila qalad anu waan ku ogolahay inaad tiraahdo aniga waa ila qalad laakiin inaan anigu kuu geystaay anigana waa ila sax ugu dambaynna faman yasuuqu lximaar qof yasay ula dhadhantay weeyaane sidaa ku daabaanu ku leenahay waana ta ka dhalanaysa subjective morality intaa un baan eegayayo maya dagaalka waxa keenay waa Soomaali dagaalka hadda fiiri u kaad amro siinaa Axmed Deeq fiiri waxa dagaalka keenaya waxa waay Soomaalian in aniga iyo adiga aan ku kala duwannahay waxyaabaha ka aaminsannahay akhlaaqda haddii aynan taas ahaan lahayn fiiri haddii aynan taas ahaan lahayn oo akhlaaqdaas objective ahaan lahayd dee maanta dagaal ma jiri lahayn yaa muslim iyo gaal isma dagaali lahayn micnaheeda aniga waxaa dhihi karaa hadda fiiri ilaah cusubaa soo samaysan karaa waxaa dhihi karaa ilaahaas ayaa wuxuu ii sheegay yaa kufsiga inuu wax fiican yahay marka objectively kufsiga wax fiican u noqonaya miyaa markaas dee okay diinta islaamka mid waa kaa ogolahay diinta islaamka marka loo imaado oo waxaa dhihi kartaa dadka muslimiinta kufsiga ama dilka ama dhaca waxay u yaqaaniin wax xun laakiin diinta islaamka marka laga tago qof aan muslim markaa weydiiso qof oo christian hadaa weydiiso oo kale qof oo maxaa la dhahayay oo bolis ah oo kale hadaa weydiisid
lama maqlo samatar صح marka in uu maxaa la dhahaye dilka qof markuu qof dilo in loo dilo inay cadaalad tahay waa wax diinta islaamka ku eg diimaha hinduism ma qabaan diinay haystaan ilaahay aaminsan okay yihiin diimaha okay african traditions marka la dhaho ilaahay aaminsan yihiin ma aaminsana waxa adiga aaminsantiid so marka waxay noqonaysaa marka allah's opinion ama allah ra'yigiisa okay marka loo barbar dhigo markano ilaaha oo hindida ra'yigooda weli waxaa okay taaganahay marka meesha subjective ka ahayd so marka meel aadna ma laha morality waa subjective hadda ilaahay ka imaad hadday ka imaaninba samatar shaqo wacan ni horta intaan u socdo waxa weeyaan waa subjective iyo waa objective inaan anigu kugu qasbo waxbaa objective ah aniga ahaan akhlaaqda waa ii objective ilaahay bayna ka timiday waana tayda aan halkaa ku caddeeyey anu waxaan si sharaf leh oon ugu adkaysanaya aan leeyahay war samatarow inantaada yareed dhashay ee 4 bilood jirta inaad kubsato ood googeysood cunto way qaldan tahay ra'yigaaga uun kuma qaldana ra'yigayga uun kuma qaldana laakiin ummadoo dhani hadday xataa isku raacdo inay arrintaasi saxsan tahay waa arrin qaldan waayo sideeday u liidatahay u qaldan tahay taa baan leeyahay subjective markaa tiraa akhlaaqdu waa taa dadkuna way u wada jeedaan kolley caqliga dadkana lama yaso waxay og yihiin subjective markaad tiraahdo inaanad hadalkaa aan anigu idhi aanad ku dhicin inaanad ku dhicin inaad tiraahdo way qaldan tahay ilmaha yar sideeday u qaldan tahay in waxaasoo dhan loo geystaa sideeday u qaldan tahay ummadoo dhani hadday isku raacdana waa wax qaldan hadday say doonaan ugu heshiiyaan waa wax qaldan cidday doonto ra'yigay doonto ha lahaatee waa wax qaldan waa subjective waa wax ii dhadhamay baa tiri dhadhankaagana dee cidna waxba kama gelin sida adigana waxba kaaga gelin dhadhanka cagsiga tan kale weydiisay tiri against the Buddhist iyo micnaha eg taasi waxay iskula imanaysaa ugu dambeyn waa u qiraya objectively isaga waxay uga timiday oo waxyi ahaan buu ku haystaa inay objectively sidan ula qaldan tahay kana sidan laakiin akhlaaqdii waa objective oo labadoodiiba way ka madax bannaan tahay oo human subjective opinion way ka madax bannaan tahay waa in la iskula imaadaa ma ilaahaagaa saxan miso ilaahaygaa saxan waxyigaaga midkee baa saxan iyaga taa un baana dhex taala anigu ma lihi akhlaaqda kristanku waa subjective weligeyna ma odhan mana lihi waa objective morality xaggooga laakiin objectivekaasi waxa weeyaan wax ku xidhan ugu dambeyn ilaahay bay iyagu u salaynayaan ilaaha jira ma kayga mise waa kaaga waa inta la isku qabsanayo ugu dambeyn marka waxba halkaa waa derbi yarood madaxa ku yar dhufanaysa samatarow waxaan kuugu soo gabagabaynayaa hadma waxaa leedahay tusaale ahaan oo kale hadda dadka hinduda marka waxay aaminsan yihiin dadka hinduda waxay aaminsan yihiin looda markin oo inaan la qalin so waxaa leedahay objectively taas waa sax miya samatar masax ba taas amar iga jawaab ممكن من دكتور نيكو يا أخي عمر halkan maanta dhan waxaan u joogay waxa iga qoslisay adiga oo leh akhlaaqda subjective inta dadkii la soo hor istaagtay indha adeegaaga ayaad ku darto tiri oo idinku haystaayo sideeday u qaldan tahay in cidi ay ilmo yar saa ku samayso intaaban aniguna doonaya inaan ku socodsiiyo dadka kale ee iyaguna objective morality source-ka un baanu ku kala duwanahay hindida iyo ummadaha diimaha haystay waxay aaminsan yihiin inuu ilaahay saa soo idhi waanan u ogolahay inuu ilaahay saa soo idhi ayay iyagu aaminsan yihiin ugu dambeyn waxaan isku haysanaan waa muxuu ilaahay idhi unba iyagana dhex yaala laakiin adi markaa tira akhlaaqda subjective sabatarow waxaad ku qowracan tahay looda in la cuno objectively waa khalad ay aaminsan dadka hinduda ma ku raacsantahay taas adiga ma ku raacsanid يعني سمتر anigu kuma raacsani waxyigaygaan aaminsanahay inuu source sax ah oo markaas fiir objective ma waa ku kala duwantiin Soomaha markaas see macquul ku noqon kartaa inaa ka aaminsan tahay looda in la cuno objective inay khalad tahay isla markaana aaminsan tahay inay ku saxsan yihiin objective inay haystaan wax sax ah waxaas keenay ma aha fiiri waa isku dhex topiga kolba meela u badbedelaysaa samatarow intaan u dhex socday waa intaa aan kaa gaadhay ee ahayd war akhlaaqdo aniga way ila xun tahay anigana ima dhaafsana bas waa intaa un baan u dan lahayn subjective hadduu ku yahay hindidu waxa anaga hindi iyo masiixina dhex yaalla adna masiixi ma tihid waxa weeye hindina ma tihid waxaana dhex yaallay anaguna dhex yaallay adigu sow subjectivekaaga kuma ekid anna waxaan ku leeyahay subjectivekaaga halkaaba ku geeyey ku ekow halkan uma iman inaan objective morality kaa dhaadhiciyo kugu qasbo it's up to you taasi adiga madax u leh laakiin kolba derbi madaxa ku garaaco kolla christianity tag kolla yahuudi wax objective wal lagu kala duwanaan karaa tusaale ahaan oo kale hadda dabka inuu ku leeyahay inuu qabow yahay dadku ma ku kala duwanaan karaan
sheekh cumarow waa aaw milxidiintii waniyo waa tagayaa meydka intaanan cashuurin meesha laga jiitaniyo meydka intaanan cashuurin meesha Muhammad su'aasha waa su'aasha la tijaabinayo nin weyn waa tahay والله laakiin waxa wax دكتور interest maraya hindidaan maraynaa masiixiyiin baan maraynaa maneyno kolba wax abuur ما war intaan u مسيحي dantaa waxa مسيحي weeyeen isku iyo haysanay يهودي iyo هندوسي waa objective hadday tahay maxaa ka dhalanaya subjective hadday tahay maxaa ka dhalanaya halkan baan kugu kala beriyay maxaa objective maxaa subjective waqtigii dhannaa halkan aan ku luminay iminkana waxa baan kusoo gaadhsiinaa tiraa waa subjective akhlaaqdaydu subjectivena dhadhankayga ma dhaafsana dhadhankaaga wixii ku egnaa adigu kugu eg yahay weeye صح waan waqtigana wuu ku socdaa su'aal baa sheekh ku cumar iyo weydiiyey waxaasa halkaa karbaashka ka sii waday so nin mid weeye adiga waa aad iyo aad baa meeqa umahadsan tahay su'aal rabana ku weydiiyey meeqa jirtaa intaanan cashuurin hamalkaadi su'aasha ugu dambeysa waa Dr. Axmed Deeqo meeqa jirtaa ما قدرتها ha maxaa sheekh gabar cumar gabar waa waa iyo inaa sanaac gabar ma ku darrabtay samatrow dhib ma laha waa ku daraya